wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada janalka Xayre Media maanta qiso aad la yaab u leh ayaan inii wadaa ninkii muslimka ahaa ee hooyada labada gabdhood ee muslimiinta ah intay u yimaadeen haddana ay yiraahdeen walaalo waxaan nahay dad muslimiin ah ee ku yiri cadayn inaad muslimiin tihiin keena qisadan waxaan ka soo naqliyay kitaabka Imaam Dhahabi uu leeyahay rahimahullahu ta'ala loo yaqaano al-kabaa'ir qisadan iyo nin sheekha ayaa ay dhaxmartay haweenay laba gabdhood wata iyo nin sheekha oo magaalo weynaa waxa dhacday haweenay ninkeedii inuu geeriyooday markuu geeriyooday laba gabdhood bay wadatay labada gabdhood markay wadatay waxa dhacday guri ayay kira ugu jirtay guriga kirada ugu jirtay waxa dhacday markaa in ay dadkii iska lahaa ay ku yiraahdeen kiradina siiya kiradii markaa waxay ku yiraahdeen iskama bixin karo marba hadaad kirada iska bixin karin guriga nooga bax ayaa lagu dhahay magaaladii way isaga tagtay si ay dadkii ay aqoon jireen ay magaalada isla deganaan jireen aysan ugu wiirsanin ama aysan ugu qosqoslin ayay isaga tagtay magaalada way ka huleeshay waxay aaday magaalo kale ayay aaday ha aaday waxa dhacday markaa magaaladii markaa la aaday masjid laga tagay ayay tagtay ilmihii ayay dhigatay waxay aaday markaa magaaladii ninkii sheekha u weynaa magaalada dad gaali iyo muslimiin isku dhex degan yihiin magaalada markay tagtay waxay ku tiri markaa sheekha magaalada ugu meeraadisay way heshay asoo markaa masaajid ka soo baxay ayay heshay ha heshee waxa maxaa dhacay markaa waxa dhaxmartay sheekadan soo socota koow waxay ku tiri waxaan ahay qof magaalada aan laga aqoonin sheekhow waxaan wataa laba ilmood agooma ah waxaan ahay qof muslim ayaan ahay waxaan u baahanahay inaad caawisid ayay ku tiri markaas wuxuu ku yiri cadayn inaad qof muslim ah tahay waa inaad keento markaas waxay ku tiri magaalada laygama yaqaano waan ku cusbahay sheekhow ilaahi dartii iyo caawi sheekhi markaa wuxuu yiri hadaad marba cadayn aad haynin inoo kala daawiyo saadarteed islaamtii markaa ninku isaga tagay sheekhu isaga tagay aan dhex geliyo maanta dadka muslimiinta meeshii laga rabay meel aan ahayn bay taagan yihiin booskooda waxa soo galay muslimiinta looga baahnaa gaalada ayaa soo gashay oo waxay doonayaan gaalada inay dadka ay gaaleeyaan oo diinta ay ka saaraan oo macmacaanka iyo waxyaalaha adduunyada maarta dhalaalka adduunka inay tusaan ayay doonayaan hasa yeeshee islaantii way tagtay nin oday ah oo nasraani oo kristan ah ayay u tagtay waxay ku tiri markaa qisadii ayay oga sheekaysay ha oga sheekaysay maxaa dhacday hadda odaygii markaa wuu qalbi jilcsanaaday wuu soo dhaweeyay si fiican ayuu u soo dhaweeyay markuu soo dhaweeyo maxaa dhacday markaasi nin oday maadaama uu ahaa da' wuxuu sameeyay laba gabdhood oo dhalay iyo haweenaydiisii ayuu raacay wuxuu yiri bax taga oo ninkan odayga raaca waxa sameeysan dharkan u sii qaada lacagtana siiya oo markaa soo fiiriya halkii bay u tageen marka dhar iyo raashin ayay siiyeen aad bay markaa u wanaajiyeen way qurxiyeen markii qurxiyeen markaa waxa dhacday in ay markii ay qurxiyeen markaa isaga soo tageen ninkii sheekhaha ee maamada labada gabdhood wadatay si fiican aan u qaabilin ee haddana sheekhul qaryada ahaa ayaa habeenkii buu seexday markuu habeenkii u seexday waxa dhacday sidan soo socota wuxuu ku riyooday in uu qiyaamihii dhacay nabigeena calayhi salaatu wasalaamna hawshii shafeecadahayd iyo hawlihii ku tacalluqay uu maartay uu guntaday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu arkay markaa guri weyn ayuu arkay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay wada kulmeen guri weyn oo aad u qurux badan oo daar weyn oo qasri ah oo wasaawada iftiimayo maartay ayuu arkay markaas yaa rasuulullah guriga yaa iska leh buu yiri markaas wuxuu ku dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri gurigan qof muslim ah oo muwaxid ah ayaa iska leh markaas uu dhahay sheekhi
ilaahayow rasuulka ilaahayow waxaan ahay aniga lafteeda qof muslima oo muwaxid ayaan ahay markaas wuxuu yiri daliilkan ama cadaynkeen inaad tahay qof muslima rasuulka ilaahayow marka waliba wuu cadeeyo haweeney intay ku timaaday soo sida maada ku dhihin buu yiri ha ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u tagay ee u tagtay ee nooleeyay sida fiican u galay ayaa ilaahay ku raayay qasriga la siiyay buu dhahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ninkii islaamkii hurdadii ayuu ka toosay markuu arkay nabiga kaleey salaatu wasalaam dhanka maray oo arrin yiri cadaynkeen ku yiri ayuu iska tagay waag markuu bariyay oo uu kacay mar hore kacay marka magaalada dhex kacay islaanta ayaa arkay baadi goob buu gabarka baadi goob ayuu galay haweeneydii isuu u heli lahaa asaf shadiid islaantii oo de meel fiican la dajiyo oo si fiican loo soo dhaweeyay ayuu arkay ninkii marka soo dhaweeyay buu u tagay wuxuu yiri kunkan dirham qaado haweeneydaas igu soo wareeji markaasuu yiri maya marka wuxuu yiri ilaahay wuxuu awooday ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray islaantan sababteeda inuu nagu soo hanuuniyay aniga ehelkayga dhan aan wada islaamnay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu maartay oo naga aqbalay islaamnimadkii oo hidaayo xaggeeda ka imaaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu soo riday darteed oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu islaamiyay oo ku wada muslimnay oo hada dad muslimiin oo muwaxidiin ayaanu nahay ayuu ku yiri marka arintii isla dhaafeen ilaahayna marka riya ayaan arkay qasri weyn oo jannada ku yaala ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay ayuu yiri marka wuxuu yiri sheekhi oo aad u qoomaysan arintaasi oo marna nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri daliilkeena qof muslim ah tahay asaga marka uga sii horeeyo yiri gabadh maama maskiina oo laba gabdhood oo agoon wadata ayuu wuxuu ku dhahay cadaynkeen inaad qof muslim ah tahay ayuu ku yiri marka sida ay ahayd waxa dhacay marka asagiina nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu ku yiri adigana cadaynkeen saadarteed asa marka guriga uu heli lahaa ee quruxda badnaa nin gaal ah oo ilaahay siiyo waliba subxaanahu wa ta'aala sababtii uu sameeyay haweeneydaasi u samafalay ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo islaamiyay oo dacwada ku qaadsiiyay saadarteed marka hadhihin qisadan waxaan u soo qaatay ama aan u sheegayaa adiga idaawanaya hor fadhiya waxaan u soo qaatay hadhihin cadayd waxyaabaha reer dadka muslimiinta ee masaakiinta hal la caawiyo oo hal la gacan siiyo arintaasi cibro ayaa kugu sugan oo qof muslim oo waliba qari u weynaa oo sheekh ahaa oo caalim ahaa oo magaalada ku dabadaynaysay inuu haweeney miskiin u yiraahdo inaan muslimo tahay oo aad faqiir tahay cadaynkeen ma saxba maya sax ma ah sida aniga ila tahay ninka wuu gafay baan leeyahay sida darteed adiga daawanaya qisadan daawanaya waxa suuragal ah inay midaas kale inaad la kulantay ayaa suurowda maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku dhihi jiray man nafasa qof muslima ninkii ka fayda kurba haysata ilaahay subxaanahu wa ta'aala asana kurbooyin yawmal qiyaamaha jira ee mashaakisha ay jirto ayuu adigana ka qaadi doonaa saadarteed waa inaad markaa dadka muslimiinta way isku dhex nool yihiin maxaa yeelay waa imtixaan jira qaybna waxa laga dhigay faqri qayb waxa laga dhigay dabaqad dhexe qaybna waxa laga dhigay dabaqad sare qaybna caafimaad baa la siiyay kuwana xanuun baa lagu saliday kuwa maartay hanti ilaahay wuu siiyay laakiin waysan ka faa'iideysanayna oo xanuun bay uga faa'iideysan laayihiin hadda ka hor waxa dhacday qiso aan ku soo dar doono oo limidka ah ayaa waxa la yiri nin dhulka cariga Yemenka joogay ayaa wuxuu ahaa nin hantiila ah marka nin Soomaali oo ka qayb galay macnaha marka magaalooyinka waaweyn ninka Yemeniga wuxuu ku leeyahay baqarre waaweyn marka iyo shirkado weyn ku leeyahay marka nin Soomaali oo Soomaaliya xagga u qaxday waxa dhacay markaas markii uu tagay ayaa wuxuu dhihi jiray hebel mooye wax kale nacfila ma jirto ayuu dhihi jiray leeyahay warkii waa la raay ninka loo geeyay markii ninka warka loo geeyay waxa dhacday marka in looga sheekeeyay nin Soomaali ayaa ku halqabsaday marka shaqada uu qabanayo hees hawleed ayuu kaaga dhigtaa bal adiga ayuu kugu soo qaataa marka ninkii wuxuu yiri halaykan maalahlo wuxuu qabtay marka qado qurux badan iyo caano kala duwan hilbiyo adigu waa garan karto qado VIP ayuu sameeyay marka guri dabaqa oo meelaha 8 biyaana ayuu saaray markaasi waxa dhacay markaasi in uu wuxuu yiri ninkii Soomaaliga
وحلقة والمرتقى نكي كمنياش إسكالها مجالهم يمانته ووينا أياكم عنها أنا حمالي وهنجري نكاس أياكم مرتقى أيولي صادرت ومركها وحورة هاي وهي سيدي تجي وحوري نكاسي إلا أن أكون بقدينها ليولي نكي بالهور كاني وأكمل نكي ونكان أضيع أو تعبان أو آد وخرفات سن أو جعت السن أو درب حن قبا أو مركب حسوها من سود قبا بلايا أيو مركب هذينها أي مركب وعاد مركب مسكين وحبا أنا سنة وسكر سن مركب سوق يري شاكدي مركب سوق هذا مركب يا قصة نجاها لينه وحقولها هاي ولا لو واحد عون إنسان أو راشين يهيل وهي بريسيدي واحد كلا دوين تشكي واحد عون إنسان يجيبس كنيو أنا هنا حق عوني يا أنا سكين عوني يا أنا ما أعرف خراري عونها يو iyo inaan biris cunay aan cabahay ma kala garanayo wiil marka waxaan wuxuu yiri anigu waxaan iman quraan waxaan iman dhabaan buu hurdana ma haysta buu yiri waxa artay ilaahay hanteen ugu salidana ma artay cadaab bay igu tahay buu yiri saadartee waxaad ogaataa hantida iyo waxan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa marna bixiya marna cidna u dhiiba waxa laga yaabaa qof shalay aad ogeyd oo hantiila ahaa ayaa fakhri ah maanta ku oo faqiir ahana waa hantiila weeyaan marka سبحانه وتعالى آيات القرآن حكول هي سورة العمران قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أي إلهي كل آيات القرآن سادرتت وحذواتها إن قف كستا وهيستو سيداسا أسوقاتي marka kitaabkaasi loo yaqaan madhahabku iska leeyahay al-kabaa'ir ayaa ku sugan tahay warka waa mahsantiin assalamu